نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سود هذا مدن يالي مريو إن دمانتين هل كان وبالخير ميديا ما أنت وحلقة دي اللباد برنامج كيني الرمها بالشدة جارهان الرمها جوركا حلقة دي اللباد وحينوجو مثيه أقويهن فلقيوين قراصره شيخ إسماعيل تكالعجه برنامجكي أي halkii nooga sii socon doona xalqadii hore ee koobaad waxaynu ku soo qaadanay ujeedooyinka waaweyn ee islaamku uu ka leeyahay guurka maantana xalqadeena waxay noqon doontaa siyaabaha loo doorto ama ay isu doortaan lamaanuhu waxaynu soo dhaweynaynaa sheekh Ismaaciil sheekheena weyn iyo qoraageena barnaamijkiina sidaa si uu ugu bilaabmo biidnillah soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد الحمد لله إله سبحانه وتعالى ومحضله برنامجكي أما حلقة دي لبعض كصاف سنيد الرماء كوركا أيينو مانتا قدقلي دونا إن شاء الله تعالى أرنتا مانتا إنو كقهد لينا وحويا واسدا إلا مانو يسكو دورانا يان marka intaanay guursan ka hor maxaa loo baahan yahay wiilka guursanaya gabadhu inuu halbeeg ama shuruudaha ama waxa uu ku dooranayo gabadha waxyaalaha uu eegaya maxay yihiin sidoo kale gabadhu maxay u baahan tahay inay ogaato oo ay ku qiimayso wiilka ay guursanayso horta qodobadaas aynu gudageli doonaa insha Allah waxaan si ku horeysiinaynaa maanta insha Allah taala wiilku marka uu gabadha uu guursanayo muxuu wiilku ku dooranayaa gabadha maxaa looga baahan maxay tahay halbeega uu u adeegsanayo doorashada gabadha ama maxay tahay shuruudaha uu eegayo oo ku xidhayo gabadha uu guursanayo ayaynu maanta tilmaami doonaa intaynaan gudagelin shuruudahaasi oo 10 ah ama halbeegyadaasi oo 10 ah isku day doona insha Allah taala inaynu soo gaabino oo soo koobno si aynu inagu ujeedadu tahay dadku ka faa'iideystaan oo ay fahmaan intaanan qodobada u gelin waxaan ka yar horeysiin lahaa horta doorashada lamaanuhu go'aan qaadashada aad go'aan ku qaadanayso inaad qof lamaana aad doorato waa go'aanka ugu adag ee noloshaada soo maraya as'ab qaraar fi hayaatika ayaa lagu tilmaamay waa nolosha yaani go'aan kasta oo aad qaadato uu ka adag yahay run ahaantii sababtu maxay tahay waxa ka ratibmaya doorashada lamaanaha ima wanaag ama dhibaato in noloshaadu ay wanaag gasho inaad raaxo ku noolaato inaad farxad ku noolaato inaad guuleysto noqoto inaad ummadda si fiican u hogaamin karto waxa soo dhani waxay ka ratibmayaan inaad hesho gabadh wanaagsan hadii aad gabadh wanaagsan hesho waxa soo dhan baad ku guuleysanaysaa hadii ay gabadhu ka xumaato noloshiiba ka xumaanaysa waxa weeyaan mashaariicdii aad waday oo dhan baa fashilmaya waayo dhibaatada ku haysatay family problem-ku wuxuu keenayaa mar walba in fikirkaagu xumaado uu qalloocdo waxaad noqonaysaa mid warwar ku nool mid walbahaar ku nool mid ma garanaysaa markuu shaqada yimaado aan shaqada si fiican fikirkiisu aanu sax noqonin waayo mashaakil fara badan marka taasina waxay sababaysaa inuu qofkaasi noloshiiba uu ku fashilmo waxa laga yaabaa haduu mashaariic lahaa mashaariicdii inuu ku fashilmo hadii uu ma garanaysaa waxbarasho ku jiray waxbarashadii inuu ku fashilmo waa family problem-ka iyo mashaakilada guriga kaga furan ayaa dhibaato ku haya marka waxa weeyaan gabadha doorashadeedu maadaama ay ka ratimayaan ima tacaasa waxay yiraahdaan waa ima sacaada ima ka wanaag iyo farxad iyo xumaan inay ka ratimayso maadaama ay ka ratimayso noloshaada dhan saameyn ku yeelanayso waxa loo baahan yahay qofku inuu qaraar ka qaadashadiisa aad uga taxadiro waxa loo baahan yahay qofku inuu markuu qaraar ka qaadayo la tashi fara badan bixiyo waxa loo baahan yahay inuu marka ugu dambeysana istikhaaro sameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala istikhaarada weydiisto oo yiraahdo ilaahayow hadii ay gabadhaasi wanaagsan tahayna yaani ilaahu idoor allahumma in kanat hadhihi almar'a ويسميها اسمها اللهم إن كانت هذه المرة خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدرها لي ويسر لي أمرها وإن كانت شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني إلا يراهضه وقدام بينتا أتكسو حدو استخارة سمركها لما مد بين قنصة إن قلبي جاي كدقو قبدي أدوني سي إن قلبي جاي كدقو واي هدي مركها وقلبي جاي كدقو بعد الاستخارة يعني استخارة وهالك قدام بيسا مركها طلابوين كي كلو دان سو مرتو
haddii uu gabadha qalbigaaga ku dego adigoo tallaabooyinkii dhan soo maray inaad markaa sidaa ugu dhaqaado oo tawakkal cala allah idaa cazamta wa tawakkal cala allah haddii se qalbigaaga ku degi waayo istikaaradii lagama aqbalin inaad halkaa ku joojiso ayaa aad iyo aad u qurux badan marka maadaama ay sidaa tahay sababtu maxay tahay de waxa weeyaan xayaatadu imika laakiin markaad eegto waqtiyadan dambe waxayba ku kooban tahayba waan ku jecelahay iyo waan ku jecelahay sheekadu waxay noqotay labadii inay waa isjeclaadaan kaliya jacaylkaasina waa mid waqtigiisu gaaban yahay waa mid caadifad ku dhisan caadifadaasina waqti dheer iyo muddo dheer ma sii shaqayn karto waqtigeedu uu gaaban yahay muddo yar kadib xaqiiqada iyo camaliga marka la waajaho mashaakiladii baa soo baxaya waxa weeyaan wax fara badan oo aan la filayn baa imanaya kadibna family problem baa bilaabmaya laga yaabo marka dambe in gurigu ku burburo marka waxaynu tilmaamaynaa yani imra'a saalixa doorashadeedu qiimaha ay leedahay aayadda quraanka ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay wa minhum man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحوى علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أي آيات في السري وحكوف السري اللهم آتنا في الدنيا حسنة أي معناه دوحة اللهم آتنا امرأة صالحة عجيب اللهم آتنا في الدنيا امرأة صالحة وفي الآخرة حور العين إلهي الدون كان قبل وناكسن يقصي والتأويل كمية تأويلات كآيات اللي قم معنيه أي كمية يعني أهمية إلى ذهي gabadhu waxa kale oo xadiistu ay tilmaantay markuu nabigu lahaa alayhi salaatu wasalaam arba'a min as-saada afar waxay kamid yihiin saadada maxaa kamid aha imra'atu saalih ayaa number 1 ka yani waxyaalaha saadada iyo wanaaga ee nolosha qofku uu ku waarayo waxyaalahaas ay kamid tahay nabiguna wuxuu alayhi salaatu wasalaam isagoo arinta dhiiri gelinaya in meel wanaagsan oo magaranaysa laga taxadiro wuxuu leeyahay nabigu alayhi salaatu takhayyaru linutafikum فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليه مركات جورسان إنسان واحد إعتان ماشى عاد عندوفتين دقيسان واحد دورتان قف مناسب كه هداد عيد جورسان إنسان هداد عيد جورسان إنسان قف مناسبة ودورة ساسودي النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عبد العاص من لورنشري أيا ويرشي سيسقى الله هذا يا يوحلا يا بني ويلشيو الناكح حبور مخترس فلينظر امرؤ حيث يضع قشه قفك جورسانيا وقف وحبيريو oo kale ayuu kamid marka midkiin ha eego meesha uu gurihiisa dhigayo ku beerayo iska eega marka run ahaantii waxa loo baahan meesha waxaan galeynaa marka toban qodob oo dul ordaynaa insha Allah taala si kooban oo aad iyo aad u muhiim ninka dhalinyarada ayaa maanta la dhageysanaya ruuxaantu waxay tahay fursad aad u qaali khaasatan dhalinyarta wali guursan laakiin ninka doonaya laftiisu mid labaad uu guursado isaga laftiisu waxay tahay fursad uu ku dooran karo gabadha labaad guursan ka doonaya inuu gabadh saddexaad guursado hadii labadii hore ikhtiyaarka ka xumaadeen isaga waa furan ka doonaya inuu tiyaabara kamilana ruuxaantu waa furan markii hore kontroodayba tii hore ku kontrooday marka waxa inta dambe inuu doorashada wanaajiyo ruuxaanti aad iyo aad muhiim marka waxa mujtamac ay farqado kamid aadiya way soo gelaysaa marka wax badan baahay fursad way dhacday yani waxa oran karaa fursad way noo ballaataa halka wadaasha aadiya doonaya ama in la weeyo ama in sadeexayaan ruuxaanti fursad way ballaataa marka waxay gudagelaynaa maxay yihiin tobanka qodob ee gabadha lagu eegayo ee qofka guursanaya inuu eega ay tahay taasi ma ku sifaysan tahay ama ku sifaysan tahay ama ku sifaysan tahay maxay tahay tobanka qodob horta qodobka ugu horeeya waa islaamnimada oo marka haday gabadhu aan islaam ahayn ma tanfa inaad guursato ma ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka soo la tankihu al-mushrikat hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wala wajib ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay guursanayeen gabdhaha mushrikaad gabadh adoon oo mu'minada ayaa ka qayb badan gabadh mushrikada hadii cajiibsan marka horta gabadhu waa inay noqoto ku dheeraanayna waxay khusaysaa inta badan dadka rubaha jooga ee la tacaamulaya gabdhaha gaalada ama meel ka wada shaqeeya marka waxa dhacday marka qaarkood deedeynaysa ajiriyaan wiilkii gabadha ay shaqeeya ajiriso waxaan leeyahay gabadha iska jir sababna inaad kursato gabadha shaqeeya xataa ahli kitaabka waa iska mushrikiin oo de muxsanaad ahli kitaab la helayo marka gabadhu inay muslimin noqoto waa shardiga labaad gabadhu waa inay mutadayinad tahay
mutadayinku iyo islaamku way kala duwan yihiin islaamnimadu waa islaamnimadii qofku inuu shahaadanayo iimaan leeyahay islaamkii guud weeyaan laakiin mutadayinku waxa weeye iltizaamkii diinta qofkii inuu isagoo muslima waa laga yaraa multazinahay akhlaaqiyadka islaamiga weyn ka muuqan adana gabadhiina xijaab xidhanayo aan salaadii tukanayo inaan magaranaysaa diintii iyo shacairtii yani ka muuqan waa muslima laakiin ma aha ninkoo kale sidoo kale waxa laga yaraa muslim yahay mararka qaarkood salaada aan tukan mararka qaarkood inuu hadlo alla qalbiga cabo mararka sida ku dhacay taas waxa la yiraahdaa marka qofkaasi waa muslim yahay waa faasiq marka qofka gabadha aad guursanaysaa gabadha multazimada diinteeda ku adag inay noqoto waayo ahmiyadda ay leedahay gabadha multazimada oo diinteeda ku adag inaad guursato waxa weeyaan gabadha aad guursanaysaa wax weyn markay mutadayna tahay waxay iska ilaalinaysaa wax kasoo ilahay xaqin waxay ilaalinaysaa ninka darbigiisa sharafteeda ilaalinaysaa maalkiisa ilaalinaysaa xumaan ilaahay bay uga baqaysaa oo ilaahay subxaana watacaala ku xidhan tahay waxa weye waxyaalo fara badan oo xumaan ku dhici lahayd waxay uga joog diinteeda ka qabanaysaa gabadha waa inay ninka multazima tahay haddii ayna gabadha multazimad ahayn dhibaato fara badan bay ninka u keenaysaa waxaa laga yaaba cirdigeeda inay meel xun karto waxaa la yidhaha gabashii xaalkulinkeeda inay wasakhayso waxyaalo fara badan baa ka dhalanaya gabadha haddana ilaahay ka baqaynin inay dhibaato fara badan u keento qoyskeeda usoo diso markaa gabadha waa inay mutadayna nabiga calayhi salaatu wasalaam ka wada garanayo xadiiskii aan garanayno gabadha maxaa lagu guursadaa buu yidhi afar limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha فترة البداية الدين الدين تلا دورة كأنت الدين تلا أنت هو أحوال الكفر سلا أحوال الكفر سلا كم أنت وقبل ما كان الكفر سلا يسوع نص حسب كذا ليجي مع الحكاية واضح كذا وروح ليه واضح كذا دين تلوي لكن عادي marka diintu aad iyo aad ay ahmiyad u tahay gabadha marka ay salaax leedahay oo imraac saalixa ay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay wuxuu yiri waxa weeye gabadhaasi diinta oo imraac saalixa leeyahay waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam adduunya mataa adduunyadu waa mataa yar oo kooban oo khayr mataa yahay imraac saalixa taariifka markii la weydiiyay waxa uu ku macneeyay imraac saalixa waa in amraha taab waa gabadha markuu ninku amro adeecaysa وإن نظر إليها سرته هذه وأنا عجب جلينيس وإن أقسم عليها أبرته هذه ودارتنا دارتي سوي في سواء أو دارتي دوالي وقبلت وإن خاب عنها هذو كما هذا نفتي يحوليه سي أولادي سي سالني قبلت سواء قبلت ونبي كنت مع امرأة صالحة تصدحات قولك صدحات إلى هو قبل واحد سؤال مع الإسلام كي يدي قولك صدحات هو واعي قبل أن أدوران يصير حتى يدرسته إذا هاي قبل عقله صحيح أما وعي له أو بيعرف حين فهمك أحيانا نقول شيء بخصوصية أو أنه حكى كذا مثلا شيء من رعاية البيت فهمك منتظر سيد الله كريه وعي أولاد سيد أولاد الله تربية وعي أولاد سيد منك ما وعي أولاد سيد مكران سيدك ما وعي أولاد جيرانك سيد الله ورد كمان وعي له ثقافة عامة أو حويا فهمك أو حيالات دنيا هي صعبة حاجات كذا مركا إن كفر فهمك أو وعي جيبي كمان عقل صاحب ووعي له وفهمك إلى الحال هذا النبي عليه الصلاة والسلام تسابق ميسي إن كمان وعي لا هاي أو كمان وعي لا أنا وفر كرو ولا بديلي كرو النبي قال تصارع إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام قال بسدي بجوانية لو نترين مثل اللوجوي قالت اللوجوي دون الكيس أيام كا لبعض حفصية عايشة على اللوجوي بقى بتنوي حنا يوم بينيسي إنما الحقيقة ما كانتنيسي ثم كنا أنت فضل مركي قراءة بعض هذا سؤال محل هو قراءة فوح على هذا إسكو لا يسلقوا دنجلوي ثم كلا يسلقوا دنجلوي دنجلوي كاسمة كواحد هذه يجرو حي شكلية بقى كتحية كمان كم كي وسهاجين وهاجين يقولوا يجيني بقى كتير كلمة يكون بوجعها مركو قصة كده waxaad ku tiraahdaa a'uudu billahi minka ilaahay baa ka magan kara kadibna gabadhii guriga loogu keenay waa la soo hooyay baabkii waa keenay nabiga calaih salaam markuu madaxa qabtay unbay tiri a'uudu billahi minka ilaahay baan ka magan galay unbay tiri wuxuu yiri nabiga calaih salaam mid weyn baad magan gashay ilhaqi bi ahlik wuxuu mid weyn baad magan gashay ehelkaaga orado
هلا صداقيدي iyo meherkeediina dii hala siiyo ila nisbay leedahay lama taabani waxa way sidii baa gabadhii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku fasaxay waayo nabiga kaleey salaam guriga nabigu waa gurigii lagu hogaaminayay ummadda islaamka waa gurigii magarasa ummadda looga talinayay muslimiinta oo dhan looga talinayay marka inay soo gasho qof aan munaasib ahayn nabiga kaleey salaam waa diiday waxa la isweydiin karaa miyaanay dhib ahayn in niyad jab ahayn gabadh muslimada intuu nabiga guriga soo galiyo inuu haddana iska eriyo runtii mafsado ka weyn ayuu nabigu eegaya مفاسد مركا إلا مفسدة سقنادان مفسدة يربى لفولا ارتكاب المفسدة الصغرى للدفع مفسدة الكبرى مفسدة يرينا تفوشو سياد مد إنه النبي فرسي وقبل بعد المفسدة وين إنه فساد كلا وجي ماده أيو النبي عليه الصلاة والسلام وطورتي مركا قبل إنه وعي على طو هذه أدبيرنا هانتي مهمة تاي قضب كوجود أفراد قبل إنه حشود ليه قضب أفراد وحويان قبل إنه حشود ليه هذه قبل حشودكم حول الدين تينو دين كستابة خلق بيلاد هاي إسلام كان خلقيس واحد شوط هدي مركا وننكو بقى بهاي حشود كا وننكا أي قرحنا يسوق قبلها ويوصي قرح بدنته هدي أي ننكا لباس يهو يهي حشودكو قبلها وقصي أي وقصي مدنته مركا قبله إنه حشود يالته أو أي مكان حشمد لا هاي أو يحياله حنو كحشوته أديات بمن نبي نقول على سيد إذا لم تستحي فسنع ما شئت هدي أنا تقف حشوانه وحطونه سمين مركا قف إنه حشوده وكبرد حشود لا هاي وشرط كمان شروط سيادة دوا كوكران ساينه حشوده كبرده واحد كوكران ساكبرد إنه حشوده سيدا أي ولا رقم يسوع أبيهد الكودا قراء ولا لهد وحيالها تعامل كذا كلا كدحية مركا ويل كل شيء كيسنا يجبرده وحيالها فربضنا وكنت جابين كرو إنه جبرده أسي جبرد حشوانه ستاي أو وحيالها قار كنت كجوك سنة سو ما يعلي إيه إن كله ما أنت واضح كتابريها أنت بحشود كيف فرهو كبحي وحوين أنت عايصوب حين على دهني دي مشكلة فربنا بيجرا مركا مشكلة ده هسي مركز جبرده نيم كمان حشود كيف وقاد بوجر يهبي لكن جبرده والجو جان كرا مركو ويل كل شيء كيسنا يو هدو حيالها قاركود كدل بضو أو تمثل عيسكديدو حجاب خفيف وراتا أما جرك أكبر تصاقلا ويرا عيسكديدو ترى هذا ورانو حسمك سمين كرام فأنا حرام ويان وحسي أنك حشانيا قبل مركز الساعة ترى هذا واحد دون قبل حشانيا سا أو حشاد لويان وحيالها مركا قضب كاسنا وقضب حشاد هو قضب يسجن آديات لو جبين وحكم ذا قضب كشنات الطاعة حيالها قبل ده لو قد دورته وحكم ذا إن قبل دان أدوران الساعة هاي قبل قو أدعي كرت oo mustaqbalka ku adeeci karto de gurigu wuxuu u baahan yahay kala dambeyn oo waxa weyn hadaan gurigu kala dambeyn helin oo aanay gabadhu ninkeeda ka dambeeyno adeecin de waxa weyn mushkilada fara badan ba ka dhalanay si aan mushkiladaas u dheeran gabadha waa inaad u eegtaa gabadhaas inay tahay gabadh ku adeeci karta oo ku deeca nabiga kaleey salaatu wasalaam gabadha wuxuu ku tilmaamay adeecda ninkeeda inay tahay gabadha saalixa ay wanaagsan nabiga wuxuu kaleey salaatu wasalaam mastafaada almu'minu ba'da taqwa allahi khayran lahu من زوجة صالحة قفك مؤمن كيه مجرى شيء وفائديستو أو كوجوليستو تقوى إلهي كذب أو كخير بدن قبض وناكسن وأدعى أو صالحة إنه حلو قبض الصالحة أيام مركاويري إن أمرها أدعته أو قبض سواء محي صالحة إن أمرها أدعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حافظت نفسها وماله انتبه حفتده أيو النبي كتل معه عليه الصلاة والسلام مركا قاعدني محيته مهدي كلا دمبينتي غورغا دعيسا waxa weeyaan gurigii markuu ninku amar bixiyo amarkiisa la qaato mashaakiladii oo dhan baa meesha ku joogsanaya waxa la wixii mashkaalka dhicinayay inta badan guriyaheena dhibaatada ugu weyn haysataa waa maxay kala dambeyn la weey tusaale ahaan waxa laga yaabaa gabadhu inay meel ka shaqeyso inay ama dhakhtar ka shaqeyso ama shirkad u shaqeyso ama xukuumad u shaqeyso iyadoo waxa soo dhan oo shaqo hayso meesha ka shaqeyso mudiir bay leedahay mudiirkaasi gabadhaasi u hoggaansantaa mar walba xafiiskeeda cid maamulaysa amar buu siinaya waxa qaba waxa iska daa waxa laakiin waxa laga yaabaa guriga markay ku noqotay ninkeedii ku noqotay inay sinaadaan oo tiraahdo aniguna saasan ku leeyahay ama sidan ma ana sidan aan ku leeyahay oo labadiiba ay sinaadaan waayahay guri markay dibadda joogtay shaqadii ay ka shaqeynaysa mudiirkeeda markay qaadanaysa laakiin markay gurigeeda timaado ninkeedii waxay rataan ayuhuma aham midkee muhiimsan qoyska dhismihiisa iyo meesha ay ka shaqeynaysa dhismaheeda waxa ka muhiimsan qoyskeeda marka inay adeecdo ayaa ka ooleysan inay meesha ay u shaqeynayso maamulaya ay adeecdo marka iyadana sidee lagu garanayaa hadaba waa su'aal kale
gabadhani inay ku adeeci doonto ilaa wali ma aad guursanay inay ku adeeci doonto inaan ku adeecayn sidee lagu garanayaa waa su'aal aad iyo aad u muhiim su'aashaas waxay tahay wax lagu garanayaa intaanad guursan ka hor gabadha waxaad eegaysaa hooyadeed sidee aabaheed ku tahay waxaad eegaysaa gabadhan aad guursanayso walaasheed sidee ninkeeda ku tahay waayo waxa la yiraahdaa gabadha gabadhu waa hooyadeed walaasheedna waa macallimadeeda meelaha ay ka qaadato macluumaadka casharada waxa weeyaan waa hooyadeed iyo walaasheed oo guurka kaga horeysay hooyadeed waxaad eegaysaa sida aabaheed oo adeecdo waxaad eegaysaa siday ma garanaysaa odayga uga dambayso si aad ku ogaataba waxaad ogaanaysaa gabadhaasi waxay hadii alla ku roon yahay in hadii walaasheed inay tahay maxay ahayd gabadh wanaagsan oo guurkeedu istiqraar leeyahay oo wanaagsan oo ninkeeda ka dambaysa haday tahay laakiin hadaad aragto ka waran gabadhan aabaheed hooyadeed aabaheed gurigeeda iska maamulataba markaad ogaato odaygaba waxba lama weydiiyo waxaad arkaysaa markaad adu gabadhii la sheekaysanaysay laga yaabo inaad xaafadda tagto mar walba islaantii baa ku soo hordaysa wixii loo baahdaa hawlihiini wax walba odayga waxba lama weydiinayaba waxaad ogaanaysaa halkaas inuu qalad ka jiro halkaas inuu wax ka qaldan yahay